Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada janalka Godlasho. Maanta mawduucana waxaan uga hadli doonaa wax loo yaqaano knockness, xaalad caafimaad oo laga yaabo in aadan horey u maqal. Haddaba kusoo dhawow muuqaalka. Waxaa isweydiin doona kow sawirka ujeedada waxa weeye mid normal ah mise mid aan normal ahayn. Yani labada qofka loo isku dhigsan yihiin, sidoo kale cagaha hoosna isku dhigsan yihiin. xaaladda noocaana waxaa la oran karaa waa normal mise waxaa la oran karaa normal ma aha, qofka saxdii ma aha. Tan waxaa go'aamin karaa inaan ogaano wax fara badan. Kow waxaa ka mid ah inaan ogaano labada meelood oo jaalaha ah oo lugta hadda ka muuqata. Labada meelood oo jaalaha ah lugta ka muuqata waxaa la dhahaa malleolus, si kale haddii loo malleolus maybe dadka qaarna u dhawaaqaan malleolus. Malleolus waa meesha u naqaano canqowga. qofku labada lugoodba laba canqow uu ku leeyahay, taasoo ka dhigan qofku inuu total leeyahay 4 canqow oo labada lafood oo lugta ku jira markay dhammaanayaan waxay ku dhamaadaan meesha jaalaha la saaray oo mid dibadda jirta midna gudaha jirta. lug kastana waxaa leedahay laba malleolus. Malleoluska dibadda jira waxaa loo yaqaanaa lateral malleolus, kan gudaha soo jeeda oo lugta kala soo xigan waxaa la yiraahdaa medial malleolus. Marka waxay noqonaysaa laf walba inay leedahay meesha laba lafood ku jiraan, lafo marka waxay leedahay malleolus sida kuwa gacmaha ay u leeyihiin process oo kale. Marka waxa weeye halka aad fahanno waxaa kaloo baahanayna fahanno ankle waxaa la dhahaa labada canqow minta ah halka yani ay meesha hadda uu noo saaran yahay jaaluhu jointiga sukaan loo lugood oo kor ka yimaada iyo inta lugta ah oo inta cagta ah foodka inta lugta loo yaqaan iyo inta foodka loo yaqaan. marka yani caafimaad kala joogo halkaas jalaqa ah oo mataana kala gooska waxa loo yaqaan ankle. marka halkan waxaa ka soo baxaya wax la yiraahdo yani xaalad caafimaad oo la yiraahdo knockness. marka knockness waxay kala cadeynaysaa in qofku uu yahay xaalad sax ah ku jiro iyo xaalad sax ah aan ku jirin. For example, qofkan oo kale hadda sida sawirka ku socona waxaa la oran karaa waa qof normal ah, mise waxaa la oran karaa qofkan xaaladiisu normal ma aha. taa waxaa uga jawaabi karnaa sidan. hadda sawirka noo muuqda waxaa weeye qof labada jilbood isku dhow yihiin, yani labada jilbood isku dhow yihiin laakiin cagaha labada canqow ay kala fog yihiin. xaaladda noocan oo kale waxaa loo yaqaanaa knockness baa loo yaqaanaa. oo xaaladda hadda qofkan sax lama oran karo qofkan waa normal, waxaa la oran karaa qofkan normal ma aha. xanuunka noocan knockness baa la yiraahdaa. knockness waxaa la arkaa marka qofku isku dhajiyo labada low inay isu imaan waayaan labada canqow. For example, qofka hore oo hadda soo aragnay labada canqowna waa isku dhigsanayeen, labada lowna waa isku dhigsanayeen. haddaan marka la ku celino qofkan labada lowna waa isku dhigsan yihiin, labada canqowna isku dhigsan yihiin. xaaladda noocan qofkan waa normal oo wax dhibaato ma hayaan. laakiin qofka noocan ah waxaa loo yaqaanaa knockness inuu qofkan qabo. su'aal yani sababtu waxa weeye marka la isku dhajiyo labada low marka la isku dhajiyo haddii qofku uu isu keeni waayo labada canqow, xaaladdan waxaa leedahay knockness. waayahay marka xaaladda noocan ayaa caan ku tahay. xaaladda noocan waxay caan ku tahay dadka ciyaalka yarar oo 3 jir ilaa 6 jir ah. mararka qaar dadka waa lagu arki karaa. xaaladda noocan haddii mataqaanaa sababteedu waxay noqon kartaa dhowr waxyaabood. waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano yani arthritis oo ka dhigan yani inflammation ku dhaca jointiska ama kala goosida ku dhaca. waxaa kaloo sabab kale loo osteomyelitis oo ka dhigan bone infection ama bone inflammation oo kale. waxyaabaha noocaas ah ka mid ah waxyaabo sababi kara. waxaa kaloo sababi kara vitamin D deficiency oo qofka vitamin D inuu la yahay oo kale, oo vitamin D ku yar yahay oo kale waa sababi karta. waxyaabaha sababi kara waxaa ka mid ah xaalada qofka uu waalidkii ka dhaxlo oo kale, waa xaalad hereditary oo ay ka mid tahay xaaladda la dhaho Ehlers-Danlos syndrome oo kale oo badanka ciyaalka yarkaas aseebta. xaaladaha noocaas ah baa ka mid ah. sidoo kale xaaladaha noocan waxaa sababi kara oo ka mid ah waxa la yiraahdo joint hypermobility syndrome oo isaguna ah yani mobility-ga yani movement-ga ay samayso joint-ku aad u bata waxaana gaara. marka iyagu sharxaad gaar ah bahanayaan sida haddii aan ka badano waxay noqonaysaa in yani uu fiididu inta ka badnaado.
laakiin waxaa isweydiin marka see loo xallin karaa. Waxaa lagu xallin karaa waxa la physiotherapy oo markaa qofka dhakhtarka u ah ilmahaaga markaa uu keenayso inuu ku xalliyo. Laakiin sida caadiga ah normal bay iska noqotaa oo lugtu iyada caadi iska noqota oo uma baahanta badanka uma baahno in dhakhtar qofka loo geeyo oo kale. Sida caadiga ilmuhu xaaladan kale ku aragtid wax dhibaato ma laho, gadaal qofku markuu xogaa weynaado caadi uu iska noqdaa. Laakiin haddii aad aragto qof xaaladiisa xumaato oo caadi noqon waayey, waxaa la xiriiri kartaa dhakhtarkaaga, waxaana lagu xalliyaa physiotherapy waxa la dhaho. Markaa haddii xaaladdu aad u xumayn, marka qaar waxaa dhici karta xaaladdu inay aad u xumaato, markaas oo kale markaa waxaa dhici kara in qofka lagu xalliyo surgery ama wax la dhaho qalliin. Laakiin qalliinkaas waa rare, waa dhif in xaaladda noocaan ah qalliin lagu xalliyo. Kusoo dhawaada channelka mar kale, waana mahadsantihiin. Insha Allah daawasho wanaagsan inaad ka faa'iidaysteen waan rajeynayaa.